Assalaamu calaykum. Markii ugu horreysay uguna dambeysay ee la adeegsado waxay ahayd bishii Agoosto sanadkii 1945 markaas uu socday dagaalkii labaad ee dunidu, iyadoo loo adeegsaday laba magaalo oo ka mid ah waddanka Jabbaan waana Hiroshima iyo Nagasaki, iyadoo maalmo gudahood ay ku qurbaxeen dad gaadhaya 150,000 oo qof oo ahaa dadkii reer Jabbaan ee deganaa labada magaalo. dabcan waxaynu u jeednaa hubka wax kumaada ee nuclearka waxaanaynu barnaamijkeenan kaga warrami doonaa bilaabashadii hubka nuclearka iyo wadamada haysta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad hore noola joogteen aad ayaad u mahadsan tahay. bilowgii dagaalkii labaad ee dunida dal waliba wuxuu xusuulduub ugu jiray soo saaridda hub uu ku muquunin karo cadowgiisa, iyadoo 1930yadii sayniska laga gaadhay horumar weyn oo dhanka fiisigiska gaar ahaan macdanta uraniumta, taasoo sababtay in wadamada Mareykanka, Faransiiska, boqortooyada Ingiriiska, Canada ay iska kaashadaan intii lagu jiray dagaalkii labaad ee dunida marshuucii la odhan jiray Manhattan, iyagoo ujeedkoodu ahaa soo saaridda hub fiisigiska ama atomic bama. waxaana 16 Julaay sanadkii 1945 lagu tijaabiyey qunbuladii ugu horreysay adduunka ee nuclear gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka, iyadoo awooddii qaraxay bombadaas lagu qiyaasay 20,000 oo tan oo walxaha qarxa loo yaqaano TNT-ga, iyadoo mar kaliya adduunku ku baraarugay tijaabadii qunbuladii ugu horreysay adduunka. waxaanay taasi sabab u noqotay inay meesha ka baxdo isu dheelitirkii awoodeed ee wadamadii dagaalku dhex marayay, iyadoo 3 toddobaad ka bacdi waa 6dii bishii Agoosto sanadkii 1945 uu Mareykanku adeegsaday qunbuladii ugu horreysay ee nuclear oo loo yaqaanay The Little Boy, isagoo ku garaacay magaalada Hiroshima ee dalka Jabbaan. isla 3 shil gudahood waxa uu mar kale Mareykanku weerar bambaano nuclear ku qaaday magaalada Nagasaki ee dalka Jabbaan, isagoo ugu magac daray bambadaana The Fat Man ama ninkii buurnaa. bombooyinka nuclear waxay si gebi ahaan u soo afjareen dagaal weynihii labaad ee dunida. waxaa sidoo kale dhankiisa waday mashaariic lagu soo saarayo qumbulada atomika dalweynihii midoogii Sofiyeeti. 29 Agoosto 1949 midoogii Sofiyeeti waxa uu sameeyey tijaabadii ugu horreysay ee nuclear ah oo sumadiisu ahayd RDS-1. goobta tijaabada waxay ahayd dalka Kazakhstan oo waagaa ka mid ahaa midoogii Sofiyeeti. qalabka ay ka koobnayd qumbulada midoogii Sofiyeeti wuxuu ahaa wax soo saar dhan 22 kilotonis, halka qaraxii ka dhashay bombada hydrogen-ka qiyaastii gaadhay 10 milyan oo tan oo maadooyinka qaraxyada ee TNT-ga, waxaanay boqolaal jeer ka awood badnayd tii Mareykanka. qaraxyadii Hiroshima iyo Nagasaki ee 1945 ayaa ku kalifay Joseph Stalin, madaxweynihii waagaa ee midoogii Sofiyeeti, inuu amar ku bixiyo horumarinta hubka nuclear-ka 5 sano gudahood. waxaana la rumaysan yahay in marshuuca uu hoggaan u ahaa saynisyahankii daada yara ee Igor Kurchakov. Ingiriiska iyo Faransiiskuna sidoo kale waxay dhisteen habab iyaga u gaara 1950yadii. liiska wadamada haysta hubka nuclear-ka ayaa si tartiib ah u korayay tan iyo waaga, waxaana maanta hubka haysta tiraba 9 wadan oo uu ka mid yahay wadan Islaam ah. waxaanay kala yihiin Mareykanka, Ruushka, Faransiiska, Ingiriiska, Shiinaha, Hindiya, Israa'iil, Waqooyiga Kuuriya iyo wadanka Bakistan oo ah wadanka kaliya ee Islaam ah ee haysta hubka nuclear-ka.